السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aad baan idin salaamayaa dhammaan akhyaarta oo dhan meel walba aad joogtaan saacad walba idin tahay. Caawa waxaan sii wadanaa xiisadeennii tobnaad oo aynu kaga hadli doono strategy. maadaama aanu soo jeedinayo waa shareec strategy waatan anagu isticmaalo isaan u isticmaalaan soo jeedinayaa 90% waa sax waa candle price action baa la yidhahdaa waa in candleka lagu talagalay asal strategiyada aan u isticmaala markaan si kale u sheego waana dadkan marka lagu warramo waa strategiyada ugu awooda badan ee la isticmaalo oo waa shay ka turjumaya suuqa waan u tegi doonaa say suuqa uga turjumayso. marka horta aan in yar hordhac ka sameeyo waa maxay strategiyada lagu sheegayaa qofku nidaamka ama qorshaha uu suuqa u galo weeyaan wax kale maaha indicator la sugayo maaha wax kale la keenay maaha waa nidaamka hadday tahay nooca traderka tahay hadday tahay inta biiba raadinaysid hadday tahay inta trader maalintii qaadanaysid hadday tahay markaad go-aanka qaadanaysid waxaad eegaysid hadday tahay waxyaalaha xaqiijinta raacaysid waxaasoo dhan baa nidaam la yidhahdaa. marka nidaamka aad ku gelisid hadday tahay nidaamka aan iskarinaysid all of that waa strategiyadaada oo qorshahaaga waxay sii leedahay entry strategy qorshahaaga u dambeeya entry strategy yiraahdaan ah sadafka u dambeeya samaysanaysid markaad aragtid aad ku dhamaado aad gudaha gelisid. marka waxaan rabaa horta hal mar inaan idin bayaaniyo dhammaan dhintoo dhan wayaan waa strategiyad baan hebel ka haya strategiyad baan soo gubeysanaya no saaxiib xasan saad u fadhiso waxa naftaada ku habboon isku day inaad fahantid waxaad taqaanid isku day inaad isku dabaqid waxaad adigu aad ku badisid suuqa ku raadi waxaad aad ku badisid haddaa baatanka aad u taqaanid haddaa indicatorka aad u taqaanid haddaa waxaad taqaanid isku raadi tijaabo badan ku samee ku nafis wataa strategiyadaadii. strategiyooyinka waa sax dadka strategiyooda baadh qaabka laakiin markaad baadhisid nidaamka baadh koobi baasi waxba ku tari mayso nidaamka strategy nidaamku raacayo qofkan kule strategiyad baan ku faa'iiday eeg hadda kuwan intriga strategiyada waxay yidhahdaan kuwan lagu go-aan qaato waxa marka arkaan galaa kuwaasoo kale way sababta u gelisay weydii inaan saxiibno ragga kamid ah waxaamayaan iska garanaya codka maqlay baasha ma gasho ilaa la yidhaahdo strategiyad marka loo sheekeynayo wax loo sheekeynayo konton jeer buu waay ilaa waayada la fahansiiye ma gasho ilaa lagu yidhaahdo waxaas saas weeyaan sababtaasna saa u isticmaalay marka haddaa sababta qaadanaysa exactly qaado waay aan hore usoo gudbo si aan horta strategiyad uga hadalno adiguna strategiyad aad u samaysan kartaan markaan casharkan dhameeyo waa inaan ka hadlana horta indicatorsku waxay yihiin although aan indicatorska aan taageerin zoomkeena marka su-aal la weydiinayo structureka barta kadib idinka isticmaalaya waxaan aqaana inay okyaala yihiin dadkuna ay moodaan indicatorku inuu yahay strategiyada wax sheegaya isagu suuq gelin kara taasi micnaheedu ma aha inaan lacag lagu sameyn dad fara badan baa jira oo aad u yaqaana bahaladan dad sameeyaa jira lacag badan lagu sameeya structureka hadday doonaan baran xariifiinku ah si fiican uga hadla laakiin waxa ka baaro weyn inaad structureka taqaanid ka maarmaysid inaad taqaanid waayo suuqa xaggan waadiya baa ka fiican inaad indicator ku yidhaahdo halkan gal ciladahoodana waa sheegi doonaa si aad adigu u fahantid. waxaan kaloo ka hadli doonaa waxa yidhahda divergencyga oo waxa ugu baawarka weyne sheega reversal ama continuationka ah waxaan ka hadli doonaa soo idin sheegi doonaa sadafka anigu aan isticmaalo waxaan ka raadiyo marka intaan trade gelin table fadki stockska meelaha la dhigto khaasatan anoo aan dhigto iyo qaabkan u dhigto iyo waxa ugu habboon meelaha ugu habboon adigu la dhigan karana waan ka hadli doonaa master tradekay khaaskaan ka hadli doonaa si waxyaalahan ka hadlayo iyo suuqin waafaqdo oo dee scalping haddaan ahay letter haddaan ahay wixii suuqin waafaqdo hore soo gudbaya indicatorska waxaa loo qaybiyaa indicators waa tusiye ama tilmaame ama fududeeye muxuu kuu sameynaya waxaad arki lahayd abaar baari lahayd ama aad ogan lahayd markiiba laga yaaba in ishaada soo dhaweeyo qiimahan inuu kor marayo oo aad loo iibsaday laga yaaba in markiiba ku dhaho exactly waa la iibsaday kadibna analyskaaga aad ku eegatid saasuu kuu fududeynaya shay aduu aad abaar baari lahayd buu markiiba kusdhawa sida okyaalo kale waxaad ishaada si wacan u qaweynaysa saa u eegi lahayd marka okyaalaha xidhatid markiiba arkas saasoo kale weeyaan hore kaa tusaya marka laba nooc waa loo qaybiyaa nooc waxaa la yidhahdaa lead indicatorska waa tusayaal waxay ku fiican yihiin saadaalinta markiiba way kuu sheegayaan in meeshaad iib u baahan tahay iyo sel u baahan tahay iyo waxa u baahan tahay meesha hadda dhinac la aado isla markiiba way kuu sheegaan horey markiiba kaaga sheegayaan macnaha waa early bay kuu sheegayaan
RSI-ga kamid ah, MACD-ga kamid ah, Sclerotics oo dhan baa kamid ah. Qolada Sclerotics la yiraahdo oo dhan, momentum-ka ka hadlo oo dhan oo isku wada mid baa kamid ah. waxay ciladoodu cilad bay leeyihiin. Ciladoodu waxa weeye signalkoodu waa degdeg ku jira, waa early signal bay ku siinayaan. macnaha qiimuhu markuu reversal sameyn lahaa sawirka kamid ka tusi doonaa. qiimuhu markuu saa u socday, markuu saa usoo noqdaba iyaga waxa laga yaabaa ku yidhahdaan iibi. ku kala sheegi maayaan reversalka iyo bullbaggi. farqi baan u dhexeeya reversalka iyo bullbagga. qiimo yar oo bullbag soo noqonaya baa laga yaabaa inaad iibisid, take profit-kaagana halkaa dhigatid, istiraahid oo kaa marka in yar buu noqday kadibna bum saa ku tagaba. way dhacdaa, aad bay u dhacdaa. marka waxyaalaha markaa sababa waxaa kamid ah inay ciladaas dhacdo. leading indicatorska ugu waaweyn waxa sababa si u sababaan tegi doonaa. waxay ku fiican yihiin iyagu aad lagu isticmaalaa suuqa hangi market. oo maxay isaga u isticmaalayaan? waayo hangi marketku ma laha dee reversal yar, wax yar oo soo noqonaya, waa qiimo kor u soconaya, hoos soconaya, kor u soconaya, hoos soconaya. marka kor baad kasoo iibsanaysaa, hoos baad galaysaa. saa tusi doonaa. waxay ku fiican yihiin hangi marketka. maxay ku yidhi leadingku waa kuwo markiiba waxay ku siinayaan signal horey kaa siinayaan. macnaha qiimahay la socdaan. qiimuhu uu saa afka qiima predictable ku fiican yahay, afka qiimaha la socdaan. hadduu qiimuhu saa u noqdo markiiba uu noqdo hore ka gal bay ku leeyihin. waqti markiiba degdeg bay ku siinayaan. predictable ku fiican yahay, waa high predictable signals bay bixiyaan. waaye aan tusaalayaal u tagno. waaye kan waa ciladaha, waa tan kanoo kala soo qaad. hadda kan waa RSI oo kamid yahay soo maha. u fiirso qiimuhu la socdaa, kan kor buu kacay, qiimuhuna kor buu kacay. markuu halka aaday muxuu ku yidhi waa overbought, aad baa loo gatay, aad baa loo gatay. waa 70 iyo 30 baa lagu xisaabiyaa. kan 20 baan ka qoraya, laakiin waa iska sawir aan kasoo qaaday si aan idinku fahansiiyo. laakiin waxaa lagu xisaabiyaa, waxaa la xisaabiyaa 70 hadduu kor u dhaafo aad baa loo gatay, 30 hadduu hoos dhaafana aad baa laskaga gaday. marka hadduu kor dhaafo xariiqdii ku calaamaysa, hadduu xariiqda soo dhaafo aad baa laskaga gaday weeyaan. marka wuu la socdaa, qiimuhu la socdaa. hadduu saa usoo noqdo markii waxaad fahmaysaa waa gad weeyaan, waa sagad. markii waad gadaysaa ilaa halkaas hadda faa'iidi lahayd, ilaa halkaa waa faa'iidi lahayd. haddana markaa halkaa maraysid sagad buu ku yidhi, haddana waa faa'iidaysa, haddana iska gad, haddana iska gad. uu ka faa'iidaa early entry ku siinaya. kanoo kala kacday horuu markiiba kaa siin, ujeedaa markiiba horuu kaa siinaya. markuu qiimuhu saa usoo jeesto markiiba hore ka raaco konaya, ujeedaa ilaa halka waa faa'iidi lahayd. wuxuu ku fiican yahay marka early entry ku siinaya markuu saa qiimihii la socdaan. ka kale markaanu aragnaad a fahmi doontaa faa'iidada leedahay early entry. markiiba qiimuhu saa u kala jeestaba isna waa kala jeesanaya, macnaha kama dambeeya qiimaha. early entry buu ku siinaya. waaye sawir kale haddana ka tuso, haddana soo aragtaan faasiis fahantaan. waa ka sawiyo rangi markada ujeeda. haddana rangi markad waxaan hadda ku sawirin waa rangi markad ku fiican yahay. marka walbu suuq rangi yahay, mar walbu aado meel rabo in la iska iibiyo maartaa kor buu joogaa. iibsu ku leeyahay marka lacag badan baa faa'iidaysa. hadda kor ka soo iibsatid halka haddana qabsatay oo ka iibsay lacag ka faa'iidaysa. haddana kor, haddana kor, haddana kor. ujeedaa rangi markadka aad buu kaaga caawinaya, wuu ku fiican yahay rangi markadka. waaye waxay kula fahanteen wuxuu ku fiican yahay si loo isticmaalo iyo suuqa. bal wuxuu ciladiisa aan doon eegno. ciladiisa waa sawirka ugu horeysay aan aad soo dhaafinin. waa kan ciladiisu. kan waa lagu soo sheegay eeg qiimahan u fiirso. halkaa kandhal baa hoos soo aaday, qiimahan wuxuu sheegay overbought. bullbagga yar in yar buu hoos soo noqday, kadib muxuu ku yidhi waa overbought, iska gad, hore u gad. qiimana xaguu aaday bum kor buu socdaa. waana dhib kale. kalena eeg sidoo kale halkan kan kale eeg kandhalkan yar, halkan kandhal eeg muxuu ku yidhi marka qiimahan hadduuba yahayba, hadduu trend market wuxuu yahay, trend market aad buu ugu liitaa. halkanoo kale day sector halkan muxuu kuu sheegayaa overbought inuu yahay, iska gad buu ku yidhi, waad gaday. hal kandhal baa soo noqday bum qiimuhu kugu noqday, khasaaro ku jirtaa. ujeeda ciladiisa. xilli hore muxuu ku siinayaa gad, xilli hore wuxuu gad gado. suuqiina ma joogo reversal. suuq kala noqonayo reversal sameynaya maaha, waa suuq ama kor usii soconaya ama hoos usii soconaya. marka ciladaas iyagu leeyihiin. iyagu ciladaas haddaad trend market isticmaalaysid waana be attention ta.
pay attention waa inaad tahay walow flag button ko kale iyo waa loo isticmaalaa exactly waxaa lagaga faa'iideysan karaa hadda waa flag button oo kale markuu yahay oo kale just ka soo qaad halkan oo kale markuu halkan saa u taagnaa flag button buu ahaa maogti markaad halkan ka gedisid aad doonaysid inaad kor raacdid exactly waad ka faa'iideysan kartaa waad dareemi kartaa inuu yahay meesha jooga ka faa'iideysan kartaa even train markada laakiin waxaad ku xisaabtamaysaa mar walba haddiiba waxaan yihiin kuwan xaraaradda sheega ama scotiska yidhahda RSI ha noqdo kan ha noqdo MACD ha noqdo Stochastic ha noqdo mar walba train markad joogtid pay attention wayla fahantay baan jeclahay waayo hore aan soconayo nooca kale waxaa yidhahdaa langing langingku iyagu waa tusayaal ka duwan kuwii hore maxay kaga duwan yihiin kuwana suuqu markuu sal aado bay kulanayaan sal buu aaday markuu ama buy aaday kulanayaan buy buu aaday already one is done markuu shaqadii qabto suuqii uu kala tago buu ku sheegay marka iyagu waa too late habsan weeyaan waa bilcagsi wixii oo kala go-ay 20 biiba lasii socday 30 biiba lasii socday kuu sheegayaanba qiimihii kuwii hore afku saa ula socday kor u socday kana kor buu socday kan uu hoos socdaa qaarkood badankooda kale uu hoos socdaan markuu qiimuhu soo noqonayay halka soo noqonayay iyagu halkooda taagan yihiin hadda intaas qiimuhu soo socday markuu iyaga dhaafo bay soo jeesanayaan maxay ku oranayaan waa gad hadda la gadi karaa maxay ku dhaafiyeen intaasoo dhan bay kusoo dhaafiyeen bal waaye maxaa kamid a iyaga waxaa kamid a aad baa u isticmaashaan moving average baa kamid a moving average aadka loo isticmaalo Bollinger Bandiska kamid a Ichimoku oo kamid a kuwa ugu baawarka weyn ee la isticmaalo aniguna waan isticmaalaa baa kamid a ciladooda waxa weeyaan oo aad bay u habsamayeen already TB1 la qaraaci rabo TB2 gii la sii dhow yahay ama TB1 la qaraaci ama already tii waxaad ka faa'iido lahayd meeshii dadka scalping isticmaalo kale waxay faa'iido lahaayeen iyadoo intii ugu muhiimsaneed meeshii ka baxday waxay ku oranayaan marka moving average uu ka uga soo baxo candle-ku hoostiisa ku xidhmo gal already marka la xisaabiyana wuxuu soo dhaafayba bibis hore badan uu soo dhaafay way jiraan edexkeega kuwa la isku isticmaalo xaraaradda marka xaraaraddu saa tagto laakiin haddaad fahantid waxay ka shaqeynayaan adaa 10 jeer indicator sameysan karo isku isticmaali karo strategic ka dhex sameysan karo wax ku dhex baari kara waa idin leeyahay strategic haddaad baratid indicator wuxuu yahay aad baratid asaga si fiican ku takhasustid adaa baran kara indicator xabad uga hadli maayo Soomaaliya inta cabta xabad ka hadlay indicator fara badan ka shaqeeya xabad si fiican uga shaqeeya indicatorada aqoontooda u baahan doontii kartaan YouTube kale ka baari kartaan aman dhexdooda malaha waa laga helayaa wan xarag laakiin adiga waxa weeye muhiimadu inaad fahantid asal wuxuu shaqeeyaan waxaan ku noocana waa langing qiimuhu mar already uu tagay bay ku sheegayaan iyagu waxay ku fiican yihiin kuwan suuqa trade market ka hadaba way baligana tusaale ka bixin waa tan Ichimoku kamid ah Ichimoku ma aragtay suuqa trade market yahay qurux soo jeedaan horta qiimahaas qurux soo jeedaan exactly waxay ku sheegaysaa qiimahan inuu sal yahay comfortable mar hadday saa u balaarantay Ichimoku waxay ku leedahay sal buu sii ahaanaya si qurux badan hoos ugu socotaa inta ayadu hoos ka joogto buurtu inta daruurtu inta ay kor joogto qiimaha sal buu ahaanaya ilaa uu yada sharciga waxa weeye ilaa uu yada soo dhex galo hadduu yada soo dhex galo waa laga baxay sal waaye bal hada u fiirso hada qiimahan meeshu reversal ka sameeyo u fiirso xagu ka sameeyo reversal xagu ka soo jeesto u fiirso hada kanoo kale halkaas ka soo jeestay goorma ku sheegtay markuu yada ka dhex baxay maarta intaas oo dhan waa habsan weeyaan boorad intaas oo dhan waa habsan ilaa inta kuma sheegin kanoo kale ka soo daray qiimahaas meesha ka soo jeestay xagu ka soo jeestay halkaas ka soo jeestay goorma ku sheegtay markuu ka mariyay ciladaas ay leedahay moving average waa sida iyadu waa sida qiimihii oo tegay bal mar dambe lagu oranayaa waa sel hadda halkaas sel kugu sheegtay marka qofkan structure-ka garanayeen head and shoulder-ka aan fahansanayn double top fahansanayn system-ka fahansanayn neckline-ka in la baash soo jabinaysa aan fahansanayn iyada qoriga ku tagayso taariikh qiimihii oo kala tagay soo yahay qiimahan waliba midkan waa mid cabaar soo socday cabaar sii socday qaar baa inta socon oo in yar markii soo socon hadana in yar soo soconaya hadana in yar soo soconaya kuwaas oo kale ama ranking oo kale zero ku noqonaysaa waxa ku fiican tahay trade market-ka way bal midkan moving average jiraan ka sawirkan aan eegno iyagoo ranking laftigeeda waan eegaynaa si uu xuntaan oo doonaa waa kan moving average-na quruxda moving average-ka soo jeedaan isagiyo system kala laakiin waa isagiyo dynamic smart system noqonaya marka qiimo soo taabto dib uga noqonaya ma jeedaan adoo halka eeg meesha reverse ka dhacay goorma inoo sheegay inuu sal yahay halka mariyay halka hada meesha reverse ka dhacay goorma inoo sheegay inuu baa yahay halka iyada ka dhex baxay
sharciga sida markuu isaga dhaafo qolo scalping waxay ku oranayaan markuu scalping garay ama dadka isticmaala istaraatiijiyadu waxay ku oranayaan qiimahaasi marka uu ka sareeyo moving average-ku waa sell marka ka hooseeyana waa buy waa goorma ka hoos maraya goorma ka sare maraya de waa goorma lagu kala tagay sababta ay ku leeyahay indicatorsku almost waa waxan nin baa sameeyay aqoon si fiican ugu leh waxan adigu waa samaysan kartaa every moving average hadda waa samaysan kartaa xisaabta moving average lagu fadhiisay hadda fahamtid adaa samaysan kara wax weyn maaha laakiin waa inaad fahansantahay waxa uu kuu sheegayo already marka xaqiijin baa loo isticmaalaa waxyaalo fara badan baa loo isticmaalaa waaye waata bari jumuka iyada iyo rangi market ku dhex jirta maarata qiimaha halkaas kusoo tegey haddana saa u baxay haddana saa u soo baxay haddana saa u baxay haddana saa u soo baxay saa u soo baxay waxay ka sheegaysa malaha isku dhex yaacday baashi rankinkii wixii saas ugu wada dhex jira aad bay ugu wada fool xumaatay soo ma jeedid marka baashan aad bay ugu liitataa waxa kan ka jooga aad bay ugu liitaan waxaan jeclahay indicators labada nooc oo loo qaybiyaa waa nooc waxay kuu sheegayaan waa ila fahanteen leading baa la yidhahdaa qiimahay la socdaan exactly laakiin early entry bay ku siinayaan oo ah early signal reversal iyadoo dhacay aan dhacaynba oo bullbagyada jiro ama laba kandal soo noqdeen bay reversal kaaga dhigayaan baan ku yidhi offer bood ama offer soo koranayaan gad iska gad kuwana waxaan ku yidhi already iyo wixii laga kala tegay bay kuu sheegayaan horta labada cilood bay leeyihiin waana awoodoodana waa looga faa'iidaystaa haddaa structure garanaysid marka u baahan tahay in train market soo kala noqonaya ama suuq kala noqonaya ka faa'iidaysatid dee waa loo isticmaalaa kuwan leadingka waa loo isticmaalaa laakiin markaad dee xaqiijimo kale fara badan haysatid qiimahan inuu intaa in la soconayo markuu saa u tago goortuu saa u dhaqaaqayo exactly wuu ku caawinaya markii hore kasoo raacsa tusaale ahaan kuwii hadda rogtaa exactly kan oo kale hadda kan oo kale qiimaha markaad garanaysa inuu ku jiro double top kan oo kale sameynayay exactly markuu halkaa marayay markiiba wuu ku caawinaya adoo candle price-kaaga eegaya candle-ladana eegaya strategy-kana eegaya markiiba wuu ku caawinaya kala kan oo kale exactly candle-ka kan oo kale candle-ka marka labadaad aragtid kana aragtid inuu meel quriyo meel fiican ku marayo oo iska iibi ku leeyahay exactly si fiican buu ku caawinaya laakiin waanaad garanaysaa meesha uu isticmaalaysa labadooda midna trade market loo isticmaalaa oo ku yidhi midna rangi market ku fiican yahay waa loo isticmaalaa labadan sidoo kale waa loo isticmaali karaa khaasatan RSI iyo ranking marketka waa loo isticmaalaa oo mar baa jirta 50giisii la isticmaalo si loo dhigo laakiin adigu waa inaad fahantaa aqoontaada waa inay noqotaa waayo shayga labadan ka hadlin waxaa loo yaqaano divergency divergencygu isagu waa tool naqshadeed waa qoladii leadingkii baa la isticmaalayaa waxaana loo isticmaalayaa iyo barayska aan ku way wada socdaan markan waxaan way wada socdaan mar baa jirta aysan wada socon markan wada socon divergency bay sameynayaan weeyaan kasoo qaad qiimuhu muxuu sameynayaa higher kuwii leading kii la rabay inay kor socdaan maxay sameynayaan lower waa khilaaf kana wuxuu socdaa kor kana wuxuu socdaa hoos waxaa loo yaqaanaa markaas oo kale divergence loo yaqaanaa waxaana loo isticmaalaa RSI-ga MACD-ga statistics-ka kuwaas loo isticmaalaa kuwaas ugu fiican loo isticmaalo runtii waa sida qaabka looga faa'iideysto leadingkii qaabkan looga faa'iideysanayaa waana powerful weeyaan aad buu awood badan tahay wuxuuna sheegaa divergencygu in qiimahan sii soconayo ama inuu soo noqonayo reversalkii continuationkii aan batteries usoo kala baranay buu kala sheegaa mid saddexaad baa jira regular horta waxay labada ugu caansan hiding baa la yidhahdaa waa kan koowaad regular la yidhahdo hadda aynu dul taagannahay ka kalena hiding baa la yidhahdaa marka way u tegi doonaa mid saddexaad baa jira oo sidii naturalkii u shaqeeya oo scientists ka yidhahdaan ma soo qaadan kaa macno badan samayn maayo labadan kale laakiin labada hadda aad baratid kole aniga duma isticmaalo macno badan ma samaysa darteed ma soo qaadan labadan hadda aad u bartay laakiin best weeyaan si fiican bay ku caawinaya waaya nooca kale waxaa yidhahdaa regularku waa marka qiimuhu uu sameynayo higher ama lower buu sameynayaa higher waxaan ama highertii kala saraynta ahayd buu sameynayaa ama lower buu sameynaya waa qiimaha price kaasaa sameynaya indicatorskiisna waxay sameynayaan higher lower ama lower higher markuu higher sameynaya waxay sameynayaan higher lower way kala yar yihiin hoos buu socdaa ujeedaa kana kor buu aadi kana hoos markuu kana sameynayay lowerna wuxuu sameynayaa kana soo hoos ku socdo kana lower higher markaasuu kor socdaa lower higher ujeedaa iyo wuxuu sameynayaa lower higher kana wuxuu sameynayaa lower oo fiiqyadiisii hoos u socdaan kana fiiqyadiisii hoose kor buu socdaan kana fiiqyadiisii sare kor buu socdaan fiiqyadiisii sare hoos bay u socdaan weeyaan waa bilcagsi haddii mar qiimuhu sameynayo higher iyo lower kuwa kalena bilcagsi sameynayaan
regular baa la yidhahdaa. maxaa la yidhahdaa regular. wuxuuna kuu sheegayaan reversal, qiimahana in uu meesha u socdo meeshii kale aadayo. waaye tusaale waxa lagu fahmayaa tusaalahan tuso. ujeeda waa kan qiimuhu muxuu sameynayaa higher higher maarta fiiqani fiiqa ka sareeyay indicator no fariiso muxuu sameynayaa higher lower fiiqi way kala hooseeya. kana wuxuu socdaa kor kana wuxuu socdaa hoos. maxay kuu sheegaysaa reverse in soo kala noqon u fiirso qiimuhu wuxuu sameeyey bum soo noqon. ilan waa calaamad reversal waa calaamad kuu sheegaysa in qiimuhu soo noqonaya moogtahay wuu soo noqday. kan waxaan ku yidhi qiimaha muxuu sameynayaa higher higher u fiirso wax kale maaha qiimaha higher higher sameynaya halka indicatorku ka sameynayo RSI ka sameynayo higher lower. sector u fiirso farqiga higher higher ayaa sameynaya qiimaha waaye hoos oo soconaya. waa tusaale kale tusaale waxaan ku badiyey ardaydu aad bay tusaale shayga codsadaan xoog bay u soo wacaan tusaaleel bay weydiiyaan dhowr qof ay la soo hadlo tusaaleel macalin sawir ah. waaye idinkuna waxaa laga rabaa google ka gala sawiro fara badan baara inta practical badan sameeya waxay u fahantaan. wuxuu kala leeyahay haddaba bullish wuxuu leeyahay iyo bearish wuxuu kala leeyahay regular ku siisaba. bullish iyo bearish wax weyn maaha. marka qiimuhu uu sameynayo higher higher maxaa imaanaya maxaa laga rabaa marka lagu reversal maxaa laga rabaa lower downturn baa laga rabaa maadaama downturn sameyn maxaa la yidhahdaa bearish oo bilcasi. haddii qiimuhu uu sameynayo lower lower maxaa laga rabaa reversal laga rabaa waa uptrend soo ma marka muxuu noqonayaa bullish bilcasi. inta qoriyo bullish waxa weeyaan qiimuhu inuu sameeyo lower lower baarkina sameeyo higher lower higherna uu sameeyo indicatorkiina lower higher uu sameeyo. halka marka lagu leeyahay bearishna waa inuu qiimihi sameeyo higher higher waxa weyna ma hayin ku khalkhalin taa waxa ku khashin maaho. haddii qiimuhu higher higher sameeyo maxaa laga rabaa bearish laga rabaa inuu hoosta qiimuhu noqdo la rabaa in reversal weeyaan ku weydiin. haddii qiimuhu sameynayo lower lower maxaa laga rabaa uptrend laga rabaa soo ma kadib bullish laga rabaa kadib maxaa noqonaysaa waa bullish wixii laga rabay baa loo bixinaya. waaye sii soconaya sawir kale classic magaca labaadna waa loo yaqaanaa ka kalena hiding baa la yidhahdaa. hiding kana isagu waa waan tul tagi doonaa keliya waxay ku kala duwan yihiin halka fiirso hal shay ku kala duwan yihiin wax kale ma. kan maxaan idinku yidhi hore classic qiimaha muxuu sameynayaa reversal entry hadda waa kaa lower lower ama higher higher. kanna indicator kaa sameynaya lower lower ama higher higher. hidingka waxaan ku dhufay halka si fiican hidingka indicatorka muxuu sameynayaa lower lower ama higher higher. regularka class isku magacee isna price ka sameynaya higher higher ama lower lower. hadda kan eeg lower lower buu sameeyay qiimihiina higher lower. halkan dhageyso halkan hidingkiina yaa sameeyay lower lower indicatorkii la soco indicatorka sameeyay higher lower higher yaa sameeyay pricekii. inta qoriyo kala duwan yihiin waxay kala duwan yihiin mar walba regularku mar walba qiimuhu ku sameeyo higher higher uu ku sameeyo qiimahani uu soo kala noqonaya. mar walba uu ku sameeyo priceku higher higherna qiimahani uu sii soconaya. waa inta qoriyo dhigta u dhigo. kana waa tusaale kale qiimihi wuxuu sameynayaa higher lower waayo tusaalayaasha waan badanay waayo hiding kasoo dhex boodnay marka hiding kasoo boodnay. hidingku waa kan hiding waa marka qiimuhu sameynayo higher lower ama lower higher. indicatorka muxuu sameynayaa lower higher iyo higher lower. muxuuna inoo sheegaysaa continuation isna wuxuu leeyahay bullish iyo bearish. waa sidoo kale kan kii hore qiimaha higher higher sameynayay kan ayaa sameynaya indicatorka higher higher sameynaya. indicatorka muxuu sameynayaa higher higher halka qiimuhu ka sameynayo higher lower. higher higher iyo higher lower waxay yihiin waa fahmaysaa. sawir adigu gacantaada ku sawir gacantaada ku sawirtid ku celceli ma fahanti farqiga dhexeeya waxaan marba ku soconaya
marna qiimaha higher iyo higher lower labada mid sameynaya marna indicator ka sameynaya soo ma haddii qiimuhu higher sameeyo regular baa leeyahay qiimahaas wuxuu ku sheegaya in la soo kala noqonayo haddii indicatorku higher ama lower ku sameeyo hiding baa leeyahay waxay ku sheegaysaa in la sii soconayo continuation pattern weeyaan in meesha loo socday loo sii soconayso ku sheegaysaa way la fahanteen man jecla halkaa way divergence intaas ka baxnaa soo waxa soo wada sawiro furso qiimuhu wuxuu sameeyay lower kan waa hader waa regular way kana qiimaha hadda wuxuu sameynayaa هذا بريس wuxuu sameeyay lower soma kan wuxuu noqonayaa hiding halkan qiimo wuxuu sameeyay higher kan wuxuu sameeyay lower higher kan wuxuu noqonayaa hiding halkan qiimo wuxuu sameeyay lower wuxuu noqonayaa regular halkan qiimo wuxuu sameeyay lower kan wuxuu sameeyay indicator wuxuu sameeyay lower wuxuu noqonayaa dhahday way adu ku dhaw marka way tan ana ku sheegay wixii damaado si wacan baaro hiding way way استراتيجية أنا وني ما أنا واحد استعمله هراء نقول شيء استراتيجية horta divergence waa mid baan horta kusoo qaaday divergence wuxuu yahay hadda fahanteed waa isticmaala sax sidoo kale indicatorska waxa yihiin waan ku kala sheegay kaad u baahan tahay waa fahantaa oo maranaya anu maxaan isticmaalaa anu caadiyan anu patternskan ku trade garaya anigu patternskan ku trade garaya maxaan ka wada patterns suuqa waa marka analyze gareynayo waa inuu ama elliott wave ama double top kii aan naqaanay ama hormonic ama trend marketka Ilios pattern aan garanayo waan ka dhaxlaa 4 hour ka noqoto meesha ka helayo dayga ha noqoto pattern maxay taraya meesha loo socdo waan fahmaa iyo way loo aadaya si aan 100 bb 200 bb wax uga faa'iidi karo oo hadaan pattern helin flag pattern ha noqdo hadaan pattern helin abdaysan ma galo qiimo kala raadsada macquul lama qiimo pattern lagama waayo ama dayga pattern ka buran yahay pattern isku xadin ku yiri ama hormonic ha noqdo ama ha noqdo Ilios ha noqdo hormonic waa soo duubaya Ilios waa fahanteen chart patterns waa fahanteen waana mid helaa way kadib aan geli karaa shayga labaad aan isticmaalaa waa candle price action marka pattern ka heshid maxaad kugu xigaya waxa u baahan tahay shay aad ku gashid aad ku gashid way ku soconi waan tusaya patterns ka sida loo helo waa taqaanaan ranking candle price aan tusaya candle price action waxa weeyaan waa markaan hadda ka soo qaad halkan kale xaan rabay selena ku galo Soomaa divergence wuxuu siiyay interview wuxuu reversal baa dhacaya waxaan labada candle-ka u dambeeyay labada candle u dambeeyay iyo kan ka horeeyanaya hadda ka wad qanaa wuxuu yahay Soomaa waliba candle-ka insa kala sheego maxaa ku sameeynaya candle-ka mar waa body marna waa week hashin waa idin diray qofkii u baahana buug baahaya si fiican candle iskugu hadlaya isna candle bible yiraahdo insha Allah wuu ila soo xiriiraya WhatsApp-ka aan number ku soo qor halkaas igala soo xiriiraya insha Allah buuga waan u diraya weekisku waxay sheegaan reversal haddii weekis dhaadheer aragtid waxay ku sheegayaan in la noqonayo reversal zone barada hal jooga reversal zone bala jooga bodiga waaye bodigana wuxuu ku sheegayaa bodigu hadduu kor jiro wuxuu ku sheegayaa in kor la aadayo hadduu hoos soo aado ifan hadduu hoos soo aado oo uu meel sare tahay kaasoo kale day bodiga hoos soo jiraa waxaa ka fahamsan kanoo kale day in hoos la aadayo marka anu meesha laga kala noqonayo candle isku wada barateen waa soo aragtay ama engulfing candle ha noqdo waxaan ka dhex raadiyaa candle kow horta waa inaan baatan helaa laba waa inaan candle barsashaa meel walbana ku jira hadda kan waad aragteen halka maarta engulfing baa ku jira halkan engulfing kala ku jira qiimuhu hadda tagayo halka bin star waxa ka saddex muuqda halka hadda ishiin si fiican u arkaso engulfing baa ku jira ifan halka hadda ka soo noqonayo bin star baa ku jira qiimuhu ka buuxaa hadda sawirada dhan hadda soo wada qaadano sawirada hadda aynu soo qaadanay hadda soo qaadano kana ku jiro hadda kan eeg ma jeedaa doji uu ku soo noqday exactly ma jeedaa markuu baxay kaas wuxuu ku baxay engulfing kan falaga engulfing ka baxay marka uu ka buuxaa qiimuhu waa ka buuxaa shayga labaad aan raadiyo marka waxay waa candle marka hore waan baanta helaa kid intaana gelin meeshan gelay kow waana candle price action ku arkaa waxa shaxada raadiya waxa waa Fibonacci go hormoniga waan ku baastos doonaa waxaan cabiraa
horta last impulsiga mar walba waan cabiraa waa barateen baatanka lagu soo saaraa laakiin labadii impulsi ugu dambeeyey iyo labadii bulbaag ugu dambeeyey Fibonacci numberskooda waan cabiraa maxaa iga soo baxa hadduu ilodeef yahay way soo baxdaa hadduu hormonic yahayna way soo baxdaa labadaba way soo baxdaa saa darteed waan cabiraa waaye sidaad u cabiro casharka hormonican idinku dhigi doonaa hadda waxba hadda fahmaysaan waayo hormonicska xiisad hormonicska soo wadaa hormonicska oo dhan waa soo wadaa xiisad ah insha Allah xiisadaas waxaan ku fahansin doonaa marka waa in meeshan bullbag marka waxaan ka rabaa Fibonacci waxaan ka rabaa marka Fibonacci waxaan ka rabaa markaan go'aankeeda gaarayo meesha aan go'aan kaga qaadanaya ama extension ha noqoto ama retracement ha noqoto extension waxaan ka wadaa hadday ahayd retracement hadda soo geliyo waxa ay ku talimaaya ilaa strategies waxaan barataan retracement lama galo bullbagada laguma ganacsado ama bullbagada hore kuma ganacsan jirin waaye meeshu doona ku dhacay waa in ay meeshu tahay meel resistant ah ama trend line number 1 resistant ama trend line waynata extension haduu yahayna meelaha extension Fibonacci-giisa ku gala 161 ka u badan iyo 261 ka haduu yahay retracement 38 ka kuma galo 50 iyo 60 ma mid gala sababtuna waa stop loss ka iga fogaanaya saasaan ugu gelin hadii aad kaligatid oo meel fog ka dhacay stop loss sabaha stop loss doortan wayna socdaan sadafkii wala fahanteen sadafkaygu waxaan ka wadaa saddexdaas shay waxa ma galo weeyaan daysan saddexdaas shay wana baatan aqoonsadaa baatanka meeshu ugu dhamaada isla hadda halkan ka noqonaya ama ka dhaqaaqay ama haraha u socdo waa in candle ka sameysmayaan aan aqoonsadaa meeshaasi waa inay igu dhacdaa Fibonacci iyo resistance isla socda waa inay tahay Fibonacci kaliya laguma talagalay waan ku yiri waay waxa jirta confirmation waxa la yiraahdo waxaan jeclahay inaan ka helo hadaan macnaheedu maaha kuwa confirmation-ka xaqiijin baa la yiraahdaa macnaheedu maaha hadaan ka waayo kuwa inaan tiragelin kuwan hadaan ka waayo material ka qaadan maayo laakiin kuwan kale waxay noqonayaan check kalsoonidaysi badan ee xaqiijinta divergence-ga aad baan isaga u jeclahay aad noogu raadiya MACD-gana ku sameeyaa divergence with MACD-gana ku sameeyaa MACD waxaan ka wadaa sawirada hadda ku soo jiray iyadoo MACD lagu sameeyo waa kan wajahada MACD-ga waa dad qaar waxay ku sameeyaan RSI-ga qof waxay ku sameeyaan MACD-ga ku sameeyaa marka ugu horeysan baranayay MACD baan ku bartay saasan MACD-ga ku sameeyaa waxaan kaloo ku sameeyaa MACD-ga wuxuu kaga duwan yahay buy xoog in lagu jiro ku sheegay mar walba oo birahaasi xariiqahaasi ay aad u dhaadheer yihiin buy xoog lagu jiraa mar walba ay soo yaraadaan buydo in laga soo baxay u badantay oo be attention weeyaan kamaarta mar walba oo xagga uu buy xariiqaha dhinaca soo noqonayaan ka badan yihiin kuwa kalena buydu way ka fara badantay xogaa after fiican baa lagu jiraa weeyaan marka momentum-ka way ka sii yar awood badan yahay MACD-gu marka intaana waad ka sii akhrisanaysaa way waana ku yaalo de waxaad doonaysid inuu ku sheegayo ku yaalo Soomaa way table fitki sawliska siyaabaha loo isticmaalo aan u isticmaalo sida hore ku sheegay last impulse horta waan dhigtaa ama bullbag ugu dambeeyay impulse waxaan ka wadaa markuu impulse uu soo socday bullbag impulse sama markaan doonayna halka ka galo maxaan sameeyaa impulse ugu dambeeyay dhabarkiisa aniga oo bullbag biban ka soo baxa aan dhigtaa sawirska wasawtan kula 38 ku meel sare ku dhacaya marka 38 ku meel sare buu ku dhacaya ka 38 kii 23 ma galo waxaan u gelin sawirka iga fog muujeedaan wax badan baa noo dhaxeeya laakiin maxaan galaa 61 ka iyo 50 ku dhaxay ku dhacaya 61 ka inuu ii soo dhow yahay maarta sawirkiiba baa loo soo dhawaad meeshaan dhigan lahaa halka waan dhigtaa jumuka sawirka waan dhigtaa lagging kan dhigtaa waan tustoona lagging wuxuu yahay hal mar baan chat ka eegi doonaa way take profit ku soo haray take profit-ka Fibonacci numbers kan ku qaataa take profit-ka waxaan ku xisaabsadaa boqolkiiba inta u badan Fibonacci number-ka waan ku baray waan idin soo sheegay sida loogu sameeyo mar impulse marka saartid waxay ku sheegaysaa correction kan saaraa waxay ku sheegaysaa extension kaas u qaataa extension-ka TB1 iyo TB3 ka soo qaataa waan idin sheegay 10 Fibonacci oo hadaan fahmin boqolku TB1 ka laga dhigtaa in yarna hoos oo laga soo baxaa waayo waa resistance reversal area ku noqon kara laga yaabaa 138 161 1.61 waa meesha ugu fogaan ka doono TB3-ga laakiin waan sii qaybiyaa cadadan sida loo qaybiyo TB-yada sida waxa uu yareeraysanaysaa waxa isku hubtartaa 40 50 100 bi waxa soo socodsiin markuu mid ku qaraaco aad u soo rartay sida loo soo raro casharka afraad basic-ga ku sharaxay baan kala soo hadlay sida TB-ga iyo loo soo raro way waan ka sii soconayaa stop take profit saan sameeyaa waka way
waxaa ugu dambeeya steel trade-ka horta waxaan idinka soo sheegay divergency-ga iyo candle precision-ka labaduba without howriska yar kuma fiicna saacadaha yar waxay ku bixiyaan 15 daqiiqo 30 daqiiqo false signalskooda badan saa darteed 1 hour kama soo degaan saa darteed anigu 1 hour kama dego trader ahaan as a day trader baan u trade garaa day trader waxaa la yidhahdaa waa inaad trade-ka kuu furnaado wax gaaraya 2 casho wax gaaraya maalin iyo habeen wax maalin ka badan habeen kuu furnaan karaa 2 casho kuu furan karaa sida hadda signaladii maanta kale ay noogu furan yihiin kuwii shalo kale ay noogu furnaayeen signalada soo diran waa wada aragteen giddi maalinta labaad iyo maalinta saddexaad iyo TP-yada qaari qaracaan maalinta labaad badanaa saxa qaraar baa la saddexaad gaadho saaka NZD Kennedy saaka inoo qaraacsiiyeen shalay inoo qaraacsiiyo inoo siin furnay marka marar badan way soo dhici kartaa sidoo kale kuwa raashideedu waa 142 dadka arkan sheegaya waa ardaydeeda ama dadkan isku group ka nahay ama isla shaqeyno business partners ka nahay IML way 142 minimum signalada giddi waa aragteen haddaan conton beep ka dhigo caawana codsoorigi ka hadlayay haddaan conton beep ka dhigo stolskayga take profitkayga targetka inta kusoo qoray 100 kama yara ka haddaysan ka badnayn fiica ugu dambeeyay kala hada dib ugu noqo qaabka steel trade waxay yiraahdaa saa u gashid 2 jeer baan galaa twin trade baan galaa sida twin trade loo sameeyo waxaan ku sharaxay 10ka afraad basic 5 basic aan duubay 10ka afraad ku sharaxay twin trade baan sameeyaa 2 trade baan isla qaataa hal stop loss oo sameynaysaa TP1 iyo TP2 hal mar wada gashanaysaa markuu TP1 ku qaraaco stop loss ka soo raraysaa waxaad keenaysaa halkii aad entry point-ga aad keenaysaa meesha aad ka gashay keenaysaa kadibna ka faa'iido ku haya hadduu kugu soo noqdana faa'iidada TP1 ka saaqo qaadatay weeyaan waxaa kaloo jirta aad u baahan tahay inaad mar walba aad ogaatid per trade beep as a day trader maadaama aan ahay 120 ilaa 90 ilaa 120 baa ku yar 160 gaarsiin karaa 170 gaarsiin karaa GBP NZD caawa kale 190 beep baa inoo qornaa 116 baa inoo qornaa euro AUD 120 inoo qornaa signaladii maanta noo 100 dheeraad baa ahaayeen badanaa 90 ilaa 120 wixii loo gaaro wixii kasii badan baan ka dhigtaa beep waa per trade xagga saacadaha waxaan ku analyze kareeyaa waa daygan ka analyze kareystaa iyo 4 hour-ka iyo 1 hour-ka way 1 hour-kana waa ka galaa tradedeeda 1 hour ka qaataa inta waxaan ku sheegayaa si nidaam ah u samaysataan adigu ama scalping ha wax walba ho hadda hot trade strategy qaadanaysid oo aad candle price action ku trade garanaysid pattern intaad heshid candle price action ku go'aan ku qaadanaysid Fibonacci kan isticmaalaysid yield wave waxaan ku baray aad raadinaysid tismay strategy divergence hadda kusoo fancy aad isticmaalaysid indicators aad ka isticmaalaysid adoo garanaya marka trade market ku jirtiin aad isticmaalaysid nimanka ku fiican trade market-ka oo ah lagging-ka marka kale isticmaalaysid aad marka isticmaalaysid rank marketna aad isticmaalaysid aad leading-ka aad isticmaashid oo igna xaqiijinta kugu sii daraan ma sha Allah weeyaan way adagtahay trade khasaartid waxa ka sii muhiimsan qoliya boqolkiiba 3 ka badan aan xoolaha ka badagelin mar walba trade qaadanaysid trade-ka war of tuuraash inuu noqdo si mar walba oo aad 5 trade hadda khasaartid 5 aad faa'iido wax ku tar karaan macquul ma hada strategy isticmaashid ilaa 5 trade inta gashay khasaartid mid laba khasaar ka taa lossku wax in trade la khasaaraa suuqa kamid wax weyn ma trade in stop loss ka qaraaca wax weyn oo macna leh ma waa arkay dad ku faanay stop loss ka ma qaraaciyo waan yiri darawal gaari oranay anigu wali gaari lama dhici karayo waqadad ilaahay ganacsiga dhan stop loss ku qaraaca uu leeyahay darawalna gaarigu inuu dhaco ka baqa inuu ka duqeeyo ka baqa waxaasna waa stop loss ka qaraaca ka duqeeyo stop loss ka qaraacay haduu shidaal ka goosto stop loss ka qaraacay ma garatay ninka farmasiga joogay dawada iibinayaan hadii ku dhacdo stop loss ka qaraacay hadii ku raagto stop loss ka qaraacay hadii ka gadmi weydo hadii bilaahi noqoto waxaasna stop loss ka qaraacay marka waa ganacsiga stop loss lagu sheegay wax weyn ma waa in shayga doonaysa oo doonaysa kugu iibsan waayo kadibna aad u khasaartid ganacsiga dhan oo ka dhacda marka qofku leh ganacsi ma maqal qoran karaan ma ugu dhici karto laakiin waxa muhiim ah inta sida nolosha caadiga boqolkiiba 90 ina faa'iido badan tahay boqolkiiba 80 faa'iido badan tahay maxaa ku badan kartaa sida run oo dhaqan xoolaha badda boqolkiiba 3 ka badan ha gelinin boqolkiiba 3 ka badan ha gelinin ma garateen sidoo kale one of tuuraashi ka yar ha isticmaalin waxna ganacsi waxaan kaloo u sheegay dadkan dad badan baa jira waxaan moodayay in u soo galeen lacag ka sameeyaan waxaan waa xirfad caadi ah lagu shaqeysto si fiican u baro markaad baratid si qoyn iskaga shaqeyso insha Allah jimuka saan u isticmaalo
haddii ilaah yiraahdo markaan horumarka soo duuban soo duubi doonaa table fadkiisa aan ugu samaystay iyo systemkaas oo dhan waan soo duubi doonaa haddii ilaah yiraahdo si fiican baan jumlka u sharxi doonaa wax indicator ayaa si wacan u sharxi doonaa waayo wax badan bay qabataa wax ay qabatona ma ka sharxi doonaa waxaan u maleynayaa haddeer ardaydii baatan iska fahantay inaan usoo fududeeyey inay geli karaan tradena qaadan karaan kuna go-aan qaadan karaan wixii su-aalana si shakhsi ay soo weydiinaysaan ama lambarka wasaaka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu